inagu haddaynu nahay Soomaali waxaanu naqaanaa ama caadadeenu ay tahay markaan wax soo barano inaanu buugta iska tuurno imtixaan haddaan soo galno markii ugu dambeysay aan soo galno inay noogu dambeyso wax akhris aan isku tuurno buugta ayaan caadadeenu naqaanaa laakiin sidaasi waa qalad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga kusoo dhawaada Munirlio Official YouTube-ka daawanaysa waa Munirlio Official fadlan haddaad ka cusub tahay subscribe noo saar aad iyo aad baad mahadsan tahay. Maanta waxaan ka hadlaynaa 4 qodobood oo ku saabsan sida ugu fudud ee maskaxdaada aad wax ugu bari karto. Qodobka koowaad wax akhri kadib seexo haddana soo toos ku noqo waxaad akhrineysay. taas waxay ku sahlaysaa in aad si fudud maskaxdaada aad wax ugu barto markastoo wax akhriso oo markastoo aad wax ogaato. maamaha Ingiriisiga waxay tiraahdaa the more you read the more you know. qodobka labaad isku day inaad mar walba qalin iyo warqad soo qaadato ood qorto waxyaabaha aad leedahay waa muhiim oo markasta waad u baahan tahay aad leedahay. markasta aad warqad iyo qalin soo qaadato wax ku qorto waxay ka caawinaysaa in maskaxdaada ay ka dhigto mid si fudud wax ku qaybta. taasina waxay ka caawinaysaa in si fudud ay maskaxdaadu wax ku fahanto oo xog badan aad ku kaadin karto maskaxdaada. qodobka saddexaad markasta waxaad isku daydaa inaad xanjo calaashato. dadka qaar baa xanjadu waxay u calaashadaan dhadhankeeda iyo macaankeeda. dadka qaar baa u calaashada dhereg dhacsi iyo dibirta inay iskaga saaraan. dadka qaarna waxay u calaashadaan si ay stresska iyo murugada iskaga saaraan. marka xanjada waxay ka caawinaysaa inaad calaashato si ay maskaxdaadu fresh u noqoto oo stresskii buuqii badan wax maskaxdaada ku jiro ay kaaga saarto. cilmi baaris badan la sameeyay ayaa keentay in xanjadu faa'iido badan ay u leedahay maskaxda. sidoo kale cilmi baaris la sameeyay 2011 ayaa la ogaaday dadka xanjada cuna maskaxdoodu in aad ay u soo jeedo ay si fiican ay wax u qabato ay ku yar tahay stresska iyo diiqada ay maskaxdooduna aad ay u degan tahay. qodobka afaraad markasta waxaad isku daydaa waxaad hore u soo baratay inaad 3 cisho kadib dib ugu noqoto aad dib u akhriso wixii aad hore u soo baratay. taas waxay ka caawinaysaa in ay maskaxdaadu ay ka dhigto mid fresh ah oo wax ma xasuusato ay wax qabato maskaxdaada. taas waxay kaaga caawinaysaa inaad noqoto qof xusuus leh maskaxdaadana fresh ka dhigaysa. markasta wax akhrineysana waxaad isku daydaa in agtaada aad biyo soo dhigato ugu yaraan caagad biyo ama koob biyo. biyuhuna waxay kaalin weyn ka qaadanayaan caafimaadka jirka gaar ahaan maskaxda. inagu haddaynu nahay Soomaali waxaanu naqaanaa ama caadadeenu ay tahay markaan wax soo barano inaanu buugta iska tuurno imtixaan haddaan soo galno markii ugu dambeysay aan soo galno inay noogu dambeyso wax akhris aan isku tuurno buugta ayaan caadadeenu naqaanaa laakiin sidaasi waa qalad. waxaa wanaagsan wixii aad soo martay inaad 30 mirir kadib waqtigaaga aad geliso aad akhriso buugtii hore aad soo martay si ay maskaxdaadu fresh u noqoto hadhow wax lagaaga weydiiyana aad ka jawaabi karayso. haddaba daawade waxaan rajeynayaa inaad ka heshay 4 qodobood ee soo sheegnay.